السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا أصحابتي ده. أنا بعد السلام أنا Soomaalidu waxaa moodaa mar walba inay yani fursad u helaan inay cadawgooda qayb ka mid ogaadaan haddana kama faa'iideystaan haday tahay duulaanka lagu hayo dadka dalka iyo diinta oo intaba uu jiro boog soo koobay oo luqadda Soomaaliga Ingiriiskana ku qoran sidoo kale tan video ahaan u diyaarsan intaana qaybtaas la gaarin waa isku soo noqon doonaa bal videoga in la daawado nimanka leeyahay mas'uuliyadda بريء هريان وإنترنت كشرين قف حكتو ده حكتو ده وحكة فعفاية وحكة شكشاجة يسجل عوني كشرين نقطة خلص كشرين إنترنت كمركو يمي حكتو ده وي مارين كروا ينو إنترنت كوا مركي بباهنية سيد أول مركي إنترنت كيمي واحد السمايان إن السمايان أيضا حكت الدلا ولقى هذا اللي قلت ما يعاو يا من دم بدل مسؤولية الشغال سنة ولا هاللي ما يو لكن وحلا السمايان يا عيدا حكت الدلا عيدا الشغال الزوايا هاي محي إنه حكت الدلا حكت نقطة خلص طب بس أنا وحفافين ساحق مثلا ninkii la oran jiray Kanye West in iyagu ugaarsanayaan oo kale Kanye West in iyagu ugaarsanayaan isla marka internetka lagu qorayo ugaarsanaya Kanye West waxa loogu tagayaa konton ama ka badan xogood oo mid koonaya Kanye West alien ba ugaarsanaya oo mid koonaya Kanye West laftirkiisa ugaarsanaya oo mid koonaya Kanye West waa conspiracy theorist weeyaano isaga doonaya inuu sumcad maamuus iyo celebrity nimadiisa inta ka sii weynayo oo attention seeker weeyaano wuxuu dadka yani dareentooda inuu helo waxaad samid kala koonaysa mas'uuliyadda eriyanaysa waxaad samid kala koonaysa shirkadda Coca eriyanaysa konton xogood baad ugu tagaysaa ka bacdina midaad xumaysaad garan waaysa warbuqna la afadonaysa halka markii marayso طبعا waxaan u baahanaa markana wax iska weydiino intaanaan u soo laaban buuga mashruuca la dagaalanka nuurka niyahow waxa u baahan tihiin amba waxaan u baahanahay inaan ogaano qoladan saddex geesoodka la dhahay yihiin iyo la dagaalamaan sirriha adeegsadaan maxay tahay ujeedkoodu sabab waaxay taa markaan isla garanno kadib waxaan u imaan karnaa buugan ah mashruuca la dagaalanka nuurka buugaas emudahu nan dhex yaala wuxuu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga iyo Ingiriiska sidoo kale to iyadoo qoraal ah iyo sidoo kale tan wuxuu leeyahay video ayuu leeyahay waxyaabaha ugu waaweyn oo marka xaaladda Soomaaliya la joogo oo xooga saaray waxa kamid ah in la baabiyo dalka dadka iyo diinta in diinta laga la dagaalamo qaybaha ugu horeey ku qoran yihiin iyo dhaqanka waliba way isku lamaan yihiin labadaas dabcan maanta Soomaaliya ma ka aragnaa waxa u baahantiin waxyaalahaas kale marka buugaas oo kale akhrisan maxaa Soomaaliya hadda ka dhex muuqdo buugan ku qoran inaan soo saarno iswaafajino maadaama wax badan oo buugaas ku qoran dhamaantiis bay halkaasna yani Soomaaliya yaaliin marka si caadi u fiiris qodobka labaad oo ah in dadka la dagaalamo oo meesha ugu horeyso laga la dagaalamo ay tahay taranka iyo qaabka loo la dagaalamo buuga way ku qoran tahay Soomaaliya marka dadka weydiisan meel kasta laga helaa yani ina dumarka lagu soo qalo kale waxyaabo guurka la isnacsiyo umada la iska horkeeno waxa soo dhan way ku qorayeen maxaa kale to buugaas ku qoran in laga la dagaalamo dalka maanta dalka waad aragtaan xuduudihiisi yani madaxdii u talinaysay yani qaabku yahay macdintiisi la iska gurto marka si guud u soo koobo dalka waxa laga la dagaalamay saddexda qodobba Soomaaliya maanta dabcan way ka muuqdaan waxa 10 aan ka baranan ma leh intaas maalmaha Soomaaliya warwareejinaya videoga ninka fanaanka dadka madaxda ah uu tirinayay hadii fanaaniin madax iyo DJ iyo TikToker dad aan leeyahin iyo madaxba uu tirinay faanisa una in halka marka marayso waxaan rabaa inaan u soo laabano qodob kale ah bal videoga la daawada ka dhacayo Soomaali ka mid tahay maanta marka waxa weeye haday dadka Afrikaanku ama dadka Soomaalidu guud ahaan dadka fayidkiisa baabuli waayaan oo cadaysan waayaan waxay dantoodu tahay waxaan u malaynayaa 100 sanadood dabadeed in taariikhdan mid ka hooseysa la xaaban doono